waxaan go'aan kan gaaray markii in dil la igu fuliyo kale xukunkeeda qoladu ii soo jeediyeen ayaan goostay inaan iskaga baxo sidaasan markaa uga soo baxay ilmo yarbino markaa waan sitay oo laba jir markaa ahaa kaana Itoobiya markaa gabar kaga imid markaa adigu wax baan iibin jiray oo marka hore ciyalka abood galaas buu lahaa school kaasoo laga xiray oo Ingiriisiga ku bari jiray kaasoo leeyahay waxaad luqad baan u dhigtaa lagu eedeeyay markaa ka bacdi ay keentay inaan anigu caruurta u shaqato oo aan meherad yar furto dukaan iyo waxaas kaasoo markaa leeyahay maxaayad dumarka ugama ogola nimanka markaa tuulada yar xukumi jireen dibna maadaama shaqadan shaaracaad ku ganacsanayso aad joojin weyday sidaas markaa laba jeer bay xireen markii dambe oo ka soo ambabax wallahi markaan wax dhibaato ah inaan kala kulmayo kamaan ogeyn mushkiladan afka uga soo galay maanan filahayn inay meesha taalo sidaas markaa keentay inaan ka soo baxo oo ka soo carool adaygo oo ilmaha yar qaato ilmahana markii aan Itoobiya soo gaaray ayaan u fikiray inaan safar dheeraan gali karahayn oo aan sidaa gabadha uga imid anigu inaan wadan ammaan aan tago ayaan markaa uga soo baxay wadankii Soomaaliya sidaas aan soo fogaaday markii aan Itoobiya aan nimid ka bacdinimo Soomaaliya waxay noo sheegeen in dadka ay qaadayaan oo saxaaraha sida lagu qaaday Liibiya la gaarsiinayo sidaas markaan adiis kaga soo ambabaxnay kabacdi markaa habeenkii maalintii toddobaadkii dambaan meel bannaan oo saxaara bana la daadiyay oo buuro yar ciido taagtaagan leh kabacdi markii aanu ka degnay ayaa horta waxana laga dejiyay gaarigii laba nin oo sii fadhiya meel yar oo foostooyin yaalaan baan ugu soo dhaqaaqay tuumbo ayaana laga dejiyay gaarigii waxay noo sheegeen in halkan qofku abada uu joogayo ilaa iyo lacagta loogu soo diro dhageysta buu yiraahdo waxaan ahay ninka la yiraahdo magafiko toranyo markaasita wuxuu yiri markaan waxaan ahay magafe maadaama magafa aan ahay waxa iga amaan heli kara oo iga bixi kara qofka lacagtiisa loo soo xawilo lacagtiisa loo soo diro kabacdi waxa dhacday qofka lacagtiisa loo soo diro lacagtiisa loo soo xawilo dadkii markaa wuxuu yiri qof walba waxaan ku siinayaa hal daqiiqad waa inaad hadalkaaga lambarka aan ku yiraahdo yeeliso iyo xawaalada iyo nidaamkooda qofkii qof hadalkiiba waa naxsan yihiin dadku waa gaajoonayaan dil iyo waxaan la filayn buu markiiba dadkii namadii ku wada bilaabay halkii daqiiqo qofkii cajaladii ka qabatay amba Yurub cidi ka joogtay cajalid ka qabatay garaac xoog lagu ku sameeynaya dhagax buu intuu gacanta ku qaado madax meel walba uu kaga turay laana maxay cajaladan iiga qabatay taleef ay iiga qabatay intii bal ay lacagtu iman balahaayeen waxa dhacaysa habeenkii markuu gobolku dhaco qof walba halka iska jiifsado habeenkii markay ilaa habeenku laba uu yahay labada habeenimo ay tahay ayaa ninkan iyo ninka kale way soo kacaan dadka way kiciyaan toosh bay sitaan dadka ay wada kiciyaan saf kala baa la yiraahdaa dadku saf baa la galaa safka marka la galo ragga iyo dumarka indhaha ayuu mid tooshka kaga qabtaa markaas la toosh indhihii adoo soo kacay oo indhihii toosh laga qabtay labada gamcood ayuu dhagaha qac kaga siinaya qofka marka qofkii labadii dhagood markuu labada gamcood isugu celiyay inamada inta badan waxa u badnayd wuxuu ka laadaa xiniyaha markaas inuu waliba halka qadaadka uu dhaca safka markuu dilo tamid walba halkaaga tag buura kii jiitameeyo kii kale bas hadana ciidi ba halka la ismaraa bari toole noqonaysa midmirka lacagtoodii loo soo diro halkaas u saara kuwa kala sidaas ugu waday dadku isku dalmayaan marka sideedii dumar ahaan anaga gabadha inan baa naxdintii iyo waxay ka qaaday manaqan xanuun baa ku yimid ma tagbay horta galabtii u horeysay yar bilowday markay ma tagbay ay waday qaarkii uu garaacay wuxuu ogaan bay isku jiifisay garaac badan buu ku sameeyay uu ku tuntay xataa cagiiso kaba buuro qafada isagoo xiran biinanta garaac ku tuntay iyadoo dhacsan wuxuu ogaan bay isku nabisaanay daweyn doona intuu ka dhaka saaray guriyada xuskeedii baa isbedelay waxa uu sii dhimatay
biyaha ayuu dadka ku qaliilin jiray oo litirka biyaha 3 meelood laga dhigay meel ahaan ayuu 24 saac dadka siin jiray oo waliba biyo shidaal ah wallaahi qofku nolol quus ayuu Yurubna ma hadal haynayo nolosha halkaas ku quusanaya yacni goorma adiguna taada ay noqon doontaa qofku ka fikiraya